بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. waxaynu intii rabbayna garadsiyo ka tilmaami doonaa mowduucaasi ku saabsiisan caaqibatu dulmi waalaalimiin, ama cidhibta dulmiga iyo kuwa daalimiinta ah. erayga dulm luqada carabeed waxaa lagu yidhaahdaa aljawr wa mujaawasat alxad, ama culammadu sharcan waxay ku tacriifiyeen inuu yahay shayga oo mowdiciisii sharciga ahaa aan la dhigin. wax kasta oo meeshii uu xaqu lahaa sharciyan ama laga kormariyo ama laga hoos dhigo, oo meeshay ahayd in la saaro aan la saarin. haddii meeshuu lahaa la saaro shayga waa cadaalad, haddii nuqsaan ama ziyaada lagu sameeyana waa dulmi. walidalik dulmigu wuxuu cagsi u yahay cadliga. haddii lagaa reebo dulmi macnaheedu waxa weeyaan ama cadaalad lagu faray cagsigeeda dulmigana waa lagaa reebay. yacni nusuusta sheegaysa inaad cadaalad samayso oo dhammi waxay dimnan sheegaysaa fii cilmi lusuul in dulmiguna manhi yahay. haddaynu sidaa u fasirno markaa qur-aanka aayaad aad u tiro badan iyo axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam wax tiro badan baa ku soo arooray. bacd alculamaana waxay idhaahdaan asal usuusha ugu waaweyn ka mid ah shareecada islaamiga, akhlaaqiyaadka islaamiga ayaa alcadlu walixsaan buu ku wareegaa bay yidhaahdaan. wuxuuba waxa la isfaray oo dhammi in allaha yaamuru bilcadli walixsaani wa iitaa'i di lqurba wayanha can alfaxshaa'i walmunkar. sidaa awgeed baa culammada badh waxay yidhaahdaan aayaadka cadaaladda sheegay oo dhammi waxay nahyinayaan dulmiga. yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina lilahi shuhada'a bilqist walaa yajrimanakum shanaanu qowmin cala an laa tacdiluu icdiluu huwa aqrabu litaqwa. rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuuna leeyahay kuwa iimaanka laga helay oo sifatuliimaan lahow waxaad noqotaan kuwa ku quma oo isu taaga xaqa alle subxaanahu wa tacaala dartii, kuwa cadaaladda la yimaada. yay idin dhaafinin baa layidhi cadho duulaa u qabtaan inaad cadaalad samayso. yay ku dhaafinen cadho aad duul u qabtaa inaad cadaalad samayso. waxaan leenahay nebigu calayhi salaatu wasalaam risaalada loo soo dhibay rusushoo dhammi dee waxay ku salaysnayd in la ilaaliyo cadaaladda. xalaaliya waxaa rasuul ilaahay soo diray iyo waxa kitaab soo degay oo dhammi ee min alraxmaan alraxiim ka yimi waxaa asal u ah in la cadaalad sameeyo. ilaahayna subxaanahu wa tacaala naftiisu ka xarimay cid kala daaye. tilka aayaat ullahi natluuha calayka bilxaqi wama allahu yuriidu dulman lilcaalamiin. tani waa ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadkiisii oo laydinku akhrinaya baa la yidhi. ilaahayna subxaanahu wa tacaala dulmi lama rabo caalamka dhammaanteed. in allaha laa yadlimu mihqaala dara. ilaahay subxaanahu wa tacaala ma dulmiyo dhuudhacasa in leeg ama waxa ugu yar. wain taku xasanatan yudaacifha, xasana hadday tayna wuu laablaabaa ama waa tiro badiyaa. wayu'ti min ladunhu ajran cadiima walaa yadlimu rabuka axada waman yacmal min alصaalixaati wahuwa mu'minun falaa yakhaafu dulman walaa hadma. aayaadkaasoo dhammi waxaa rabbi subxaanahu wa tacaala uu ku tilmaamayaa min sifaatihi inay ka mid tahay alcadlu, inuu rabbi cadaalad sameeyo, wax dulmiya aanu samaynin. walidaalika baa xadiid alqudsiga alle subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa yaa cibaadii innii xaramtu dulm calaa nafsi. wardadow dulmiga naftaydan ka mamnuucay, idinkana waan idinka mamnuucay, ee falaa tadaalamuu ha isdulminina baa alla leeyahy subxaanahu wa tacaala. idinka dhexdiinnana xaaraan baan ka dhigaye ha isdulminina. dulmigu markaa waxaynu naqaanaa shareecadda xagga rabbi ka timi dhammaanteed inuu mamnuuc ku yihi. intaynan cidhibtiisa gaadhin maxaa dulmiyaan isweydiino.
culimadu waxay dhahaan dulmigu saddex qaybood baa loo qaybiyaa qofka oo naftiisa dulmiya oo ku dulmiya shirki gaalnimo alladina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulm ulaa'ika lahum اlamnu wahum muhtaduun baa ilaah yidhi kuwa iimaanka laga helay ee aan ku dheehinin iimaankaasi dulmi saxaabadu waxay dhahaan ilaahay rasuulkiisiiyo waayuna lam yudlim waa kee kayaga aan dulmi samaynini markaasuu nebigu yidhi miyadan maqal alcabdi saalix warkiisii ahaa ina ashirka la dulmun cadiim yaa bunaya laa tushrik biاllaah ina ashirka la dulmun cadiim idan dulmiga koowaadee la reebay waa in ilaahay subxaanahu wa tacaala xuquuqdiisa lagu xadgudbo xaqa rabbo lagu xadgudbana waxa ugu weyn maxay iyadoo ilaahay subxaanahu wa tacaala loo shirik yeelo cibaadada cid kale lala wadaajiyo isagoo ku abuuray oo ku arsaaqay oo ku caafimaadiyey oo dunida ku keenay oo waxaad cunaysa leh oo kownka dhammaantii iska leh haddana cidaan isaga ahayn inaad u mahadnaqdo caabudo waa mamnuucaadka ugu waaweyn walidalik baa ilaahay wuxuu leeyahy waalkaafiruuna hum aalimuun baa ilaahay yidhi gaalunbaa dulmi sameeya ama daalimiinta dhabta ahi waa kuwa kaafiriinta aba rabbi ku tilmaamaya waa xuquuqda ilaah oo la dulmiyo waa qaybta koowaad qaybta labaadna waxa weeyaan qofka oo isagu naftiisa dulmiya oo macaasi ku dulmiya macsi ilaahay subxaanahu wa tacaala dulal badan buu intuu halaagu wuxuu leeyahy wamaa dalamuuna walakin kaanuu anfusahum yadlimuun wamaa dalamahum allahu walakin kaanuu anfusahum yadlimuun ina allaha laa yadlimu nnaasa shay'a walakina annaasa anfusahum yadlimuun waman yacmal suu'an aw yadlim nafsah uma yastakfir ilaha yajid ilaha gafuuran raxiima macaasida oo dhan iyo cibaadada rabbe laga tegayo faminhum daalimun linafsihi ilahay uu qur-aanka ku leeyahy waxaa dadka ka mida baa la yidhi midaa daalimun linafsih saabiq bilkhayraat baa ka mida waxaa kaloo ka mida baa ilaahay yidhi daalimun linafsih waa dulmun duuna dulmin qofkii samaynayey siiba dulmiga ku saabsan naftiisa ee ah waajibaadkii shirkiga kuma dhicin laakiin waajibaadkii rabbi faray buu wax ka mida ka tegey ama muxaramaadkii laga manciyey buu wax ka mida ku dhacay iyana waa dulmi qaybta saddexaad oo dulmigu waa dulmi alcabdi ligayrihi min alcibaad waa qofkaoo dadka kala dulmiya oo xuquuqdooda dulmiya walidalik baa nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka caaisha warinaysa waxay leedahay addawaawiinu cinda allahi caza wajalla alaaa diiwaanku ilaahay agtiisa waa saddex diiwaanada wax lagu qoraa ee rabbi hortiisa la keeni doono ee qofka addoonkaa loo sidaa waa saddex diiwaanun laa yacba'u allahu bihi shay-an wa diiwaanun laa yatrukuhu allahu minhu shay-a wa diiwaanun laa yakfiruhu allah diiwaan aan ilaahay waaba yeelin iyo diiwaan aan waxba lagaaga tegaynin iyo diiwaan aan isaga laguba dembi dhaafaynin diiwaan aan lagu dembi dhaafaynin waa haddaad gaalnimo ku dhacday oo kaa ilaahay ma dhaafo gaalnimada innahu man yushrik biاllahi faqad xarama allahu calayhi اljanna qofkii ilaahay subxaanahu wa tacaala u shirig yeela ee dulmiga noocaasa ku dhaca ilaahay subxaanahu wa tacaala janno wuu ka xaaraam yeelay diiwaanka aan ilaahay u aabba yeelaynin laa yacba'u bihi waa wixii adigiyo rabbigaa idin dhexeeya ee macaasiyaad ku dhacday in shaaa cadab wa in shaaa gafar ilaahay waa kaa dhaafi kara subxaanahu wa tacaala diiwaanna lagaaga tegi maayo waa dulmu lcibaadi bacduhum libacd waa addoommuhu dulmiga iyagu isdulmiyeenee badhba badhka kale uu dulmiyey waa laa budda min qisaasin isagu waa lagu qisaasayaa laa maxaala sinaba lagaaga tegi maayo aakhiro waa lagu soo taagayaa waa ka nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka kale ku leh
من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها. عن رجين إنه بخاري كي لك كله كي هو إمام أحمد يا حاكم يا غير كباوري علماء بدنا عراقي كمدينة وتصحيحنا يا وحاو نبي لي عليه الصلاة والسلام قفك ولالكي ظلمك قالي ورك حلال ضلبه يعني توبته ذنوبته إنك توبت كأنته إلهي توبته وأقبله لكن هدي ذنبي جوها ذنبي ابن آدم كجشي وحواجب جوها إن سميسه وحواجب جوها إن سميسه إن كحلال مي ويدي ستين وكعفيه waayo nabigu wuxuu yiri alayhi salaatu wasalaam maalin baad imanaysaa aan dirham iyo diinaar toona jirin oo qofka waxa uu ka guraya ay tahay xasanaadkaagi wixii aad shaqaysatay uu ka gurayo haddii aanad xasanaad haysan oo ay ka dhamaatana lagugu bedelayo sayi'aadkoodii in dusha laga saaro idan ikhwati fil aqeeda suwaru dhulm wa saddexda qaybood bay culimadu u qaybiyaan qaybaan ilaahay dhaafayno gaalnimo ah iyo qayb laga qaadi doonaan lagaaga tagaynin oo adoomaha wixii aad u geysatay iyo qayb rabbi subhanahu wa ta'ala inuu abayelin oo ka dhaafayo insaankuna sidiisaba min tabcihi bay kamid tahay inuu wax dulmiyo ilaahay ba quraanka wuxuu ku leeyahay in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar hadda ilaahay nimcooyinkiisa tirisaan soo koobi kari maysan ba rabbi leeyahay subhanahu wa ta'ala bini aadamku sidiisi uu yahay ba ilaahay yiri zaluum mid zulmi badana ah oo gaalnimo badan ayuu bini aadamku sidiisa yahay innahu kana zaluman jahula hayad kale waa ilaahay ku sifeynay insaanku min tabcihi ayaanu cidba wuxuu ogolay laakiin islaamnimadu waxay u soo degtay in طماعنimada inta lagugu itixaamo la eego bal inta aad qabsoonto iyo inta aad qabsoomi weydo islaamnimada macnaheedu waxa weeyaan markaasi oo ilaahayba kitaabka uu soo dejiyay in cadaalad lagu dhaqmo oo qofku uu naftiisa control karo suwaru dhulmina wa qawl iyo ficil ba way noqdaan si kale hadaynu u qaybino qawl way noqdaano waxaynu maanta tilmaamaynay cay iyo xan iyo namiimo iyo sukhriyo iyo buhtaan iyo qadfi iyo waxa soo dhamay afxuma ee afka soo baxo dhama waa dhulmi ayuu noqon karaa qaybina waa ficil oo waa dil iyo boob iyo dhac iyo zina iyo khamri cab iyo waxa la halmaalo oo dhami iyana waa dhulmi kale qofka mu'minka waxa laga rabaa waxay tahay markaas inuu dhowrsanaado nabi muhammad alayhi salatu wasalaam wuxuu leeyahay اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب والظالمك مظلومك دعودي سيسك إلالية حتى قالنا هالنقضة اسك تربال لي إلهي نقوبر يقف بين آدم وظلم ذي خطر ويا وحين نوجد بمركها دب الظلم ما دام وعينك هي عقوبة دي سوا محي عقوبة وكلوينتي وعقوبة الدنيا عقوبة آخرة الدنيا وحيدا دين ظلمك عقوبات كلا قد حلو حكم دكو أمن الدر بين هذا سمال دو حيدا عندك رقبة دولك ودغدغاقة يعني مركز وحصاد ظلم ده وحك استوت كبغيسة وحيدا كو والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن بإلهي وهم مهتدون كو إيمان لقاها لان ظلم كلهم بان نبتقلية اسكالي بالي أمان كوين إليه وأمان كمالة قيامة مشركين تده نبت ما هيستان أدونك إنت اللي تشوق بإليه لفتيده أهل الإيمان كو مطمئن القلب والبال وقف قلب أهان إيلا بهان بدقن وقف أن عدنا وحقي سنين أما ظالمك وقف بقية وعبصنية مهما وعيش ظلميي دقر قبو ما سيحضه
وفيتشي ولذلك بوحي دقاقبة ظلمك أما هيرادا أما هويناد انتو دون يهلكادو يعني قفكو ظلمك وحو سمايا وبقدر مسؤوليتي مكهره midbaan mas'uuliyadiisu reerba dhaafsiisnayn oo islaanta iyo labada caruur ku durdurinayo dulmigiisu yahay qof dumar ah iyo laba caruur oo dhalay inuu dulmiyo midba dawladda dhan haysta oo dulmigiisu yahay bulshaweynta uu xukumo inuu dulmiyo midba meel ka hooseeya jooga qofba meel buu jooga biqadri al-mas'uuliyya baana dulmigu jira biqadri al-mas'uuliyya dad badan oo imika la yaaban niman madaxa iyo baan isleeyahay haday madax noqon lahaayeen way ka sii dari lahayd waayo qofka mas'uuliyadda yar qaadi kari waaye mas'uuliyadda weyn ma qaadi karo qofka in masaajid ku tukata kala didinaya ma bulshad ka tira badan oo mid xun iyo mid wanaagsan la isku wadi karaya yani qofka masaajid inta ku tukata dulminaya in ka weyna ma maamuli karayo idan dulmiga cirib xumadiisa waxa kamida inuu qofku nabadgaliyo waayo iban adduunka nabadgaliyo ma haysto garantiye ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay falama nasu ma dhukiru bihi fatahna alayhim abwaaba kulli shay hatta idha farihu bima utu akhadnahum baghta fa idha hum mublisun faquti'a dabiru alqawmi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin markay ilaabeen baa ilaahay yiri wixii aanu ku waaninay wax kamid ah ayana anagoo si itixaamayna waxaan u furay baa ilaahay yiri abwaaba kulli shay albaabada wax kastaba uu ka gaaloobay ilaahay uu beeniyay hadana adduunka loo sii furay xoogiisa iyo quwadiisa iyo lacagtiisa baa sii badatay laakiin ilaahay wuxuu leeyahay hatta idha farihu bima utu marka ay gaadhaan xad ay kibir iyo qooqooda loo taag waayo wixii alla siiyay qooq ka sii qaadaan ilaahay wuxuu leeyahay akhadnaahum baghtatan fa idahum mublisun maruban sikadisa u qabanna sababa kuwii qoostay baa ilaahay yiri subhanahu wa ta'ala faquti'a dabiru alqawmi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin waxa la gooyay baa ilaahay yiri xidhibtii kuwii dulmiga sameeyay ilaahay baana ku mahadsan subhanahu wa ta'ala ظالمك أدونك عرب حمضة سولي ظلم وعربتيسو ولا بد من هلاك ولو إلهي وقت أكاديه إلهي القرآن كوحك ليه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون لكن ربي وحليه ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة dadku waxa ay dulmi sameeyeen hadii rabbi u qabto dhulka korkiisaba waxba lagaga ma tageen ba ilaahay leeyahay subhanahu wa ta'ala walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma waxa ilaahay ugu gadaal dhigayaa waqti magacaaban fa idha jaa ajaluhum fa inna allah kana bi'ibadihi basira hadii waqtiga ajashooda ay timaado ilaahay subhanahu wa ta'ala doomihiisa ku og oo arkaya waxay sameeyeen weeyaan يعني رب سبحانه وتعالى وحت المامية يدو للاستدراج لحكم يعلمها الله وأملي لهم بإلهيه وأكادية ظالمين تو إلهي وحب الله قاضي عنده مال هرت الله حساب تميين يشرته بني آدم كوحس كتشعلية كوكستو ظلمية مركبين وصاق هغا صاق أبطه ninkii dawladda haystay kumaankumka dilay ama malaayiinta dad dagaal ku dilay hadii markiiba la soo qabto even oo la dilo 10 milyan isagoo dilay hadii la dilo de qof waa loo dilay hal naf oo gooya loo gooy 9 milyan iyo 999 kun kale ee nafood maxaa la sameeynaya ظالمك ودن كتالية هدي بيفن لقبطه لديله انتي وكالو الدنبي ماذا وحاصو بشر الله وحاصو بشر ظلمي إلهي وحلي محكمة بان لا ينو قارة وعذاب لا يراهضه
oo intii dada dambigooda lagaga jarayo ولذلك بقى رب سبحانه وتعالى وحليهي dadku dulmiga ay sameeyaan hadii xabad loogu qabto dunida badana nolol kama jirteen ba ilaahay kii dulmiyaba hadaan ku dhagaba ilaahay leeyahay subhanahu wa ta'ala bini aadamna dulmi deyn maayo kii dulmi sameeyaba hadii la qabtana ma taraka ala dhahriha min dabba dunida korkeeda waxba lagama tageen ba ilaahay leeyahay subhanahu wa ta'ala laakiin intooda badan dib baan ugu dhigayaa ba rabbi tilmaamaya in lagu cibro qaatana وتصيب إلهي إليه سبحانه وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجسا من السماء بما كانوا يفسقون إلهي وحط الماما سبحانه وتعالى عقابتا دبتا اي حسابتا دبتا وان كيديي با الهي ليو ميل بيت الله مالين بان الله حسابينيا ku kasto dulm sameeyana ba ilaahay leeyahay hadaan qabto waxba soo hari maaya daba nolosha waa la isku keenay taxaamaya fursad baa la isasiinaya ba ilaahay leeyahay subhanahu wa ta'ala la'allaka tatub inaad soo noqoto inaad rabbi caabudo inaad dib u toobad keentid fursad baa lagu siinaya dulmigu inuu xun yahayna نماذج بان idin siinaya ba ilaahay leeyahay examples tusaalayaal quraanku wuxuu nooga waramaya marka wixii ummad intay kibirtay la halaagay quraanka ilaahay wuxuu ka waramaya maxay qisooyin tira badan ha hiya aaqibatu zalimin qisas ka tirada badan leh ilaahay wuxuu leeyahay fa kullan akhadna bi dambi mid kastaba dambigiisa waan ku qabtay ba ilaahay yiri dulmigiisa فمنهم من أرسلنا عليهم حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وحكم دابا إليه سبحانه وتعالى كي هرسدي الله هلاقي با إلهي تلماوي قار دولك للقوي قار قيل لغو هلاقي qaar dabayliya balaayo lagu itixaamay qaar badal la raacsiiyay qaar basibaan u halaagay ba ilaahay yiri dhamaantoodna waxaan ku halaagay ba rabbi leeyahay dambigoodii wama kana allah liyadhlimuhum ilaahayna kooxnaba ma dulminin waxa soo dhamaantood rabbi wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala iyaga ay dulmiga sameeyay ee anigu qaarnaba ma dulminin idan waxaan leenahay waxa dunida soo maray ee cid la halaagay waa namaadij وتصاليال إنك الله ينربا إنه كعبر قادنا بل يكون دنيا لهلاقي قوقي أي إلهي وحط المام يا قار حتى قلفتو دين ولا الريب أيه سدتك عبر وين يقصي نقطة كوين شوقنا حتى ينكو عبر قاطان فرعون وحكم دي يدك وقوق قبضنا دنيا صامري صحيح كما وهي وانك انتو ضد شرطة لها أنا ربكم الأعلى ربك كرية هذا ما ربك هو سيبا ربي هذا يرير ماها أنا ربكم الأعلى بوي ربي إن كرية أنا ما علمت لكم من إله غيري إله أنا هاي بيدين قرن مايو حد قادي لمن حوله كيدا هذا ضدك هو سماها يا شعب كيرا ولمن حوله من الملأ مدح يواوين تيسقى أكتي سمام الغغلد اللي وداقي سي أيو لي إله أنا رجع هين دين قرن مايو ربي سبحانه وتعالى كاوحة المامية إنه هلاقي وبضة أي لا تكتي ومركي نفتو كسيب حيسي وقيليي وكل واقع وحن رمي خير بنو إسرائيل أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين إلهي غير بنو إسرائيل عابد ينبان الرمي مسلم كان كم ضحي وقرأ قرقرة سوق على واختيار لا أقبلين حتى توحيد كجرة توحيدكم أنت فرصة هاي سطه أي ربك أقبله لكن إلهي عذاب كيسو مركو سود ضدك اللي هلاقيه أما قرقرة مركو سوق قاعدو توحيدك لما أقبله مركب برد واقع فرعون
وحل وجهه الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ما هدي كايرسي سيبا ليري لا إله إلا الله يور كانت شيغيسو ما هدات كنا واقضي أديقو هوري مفسدين توغمدها إلهي وحينا لي مكا آيات انت نقص عذابها هلكا فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون با إلهي فرعون وما انت با إلهي وحن بدبادنا يا قلفت هذا شركاغان سور ريبيا si aad ugu noqoto calaamad iyo aayad ay wax ku qaataan kuwa adiga ka dambeeya kibree qooqa sida warkaan nin kasto qooqa halka uu ku dambaynayo haddana ilaahay wuxuu leeyahay wa inna kathiran min an-nas an ayatina laghafilun dadka see in badan oo kamidi waxa ay gaafil ka yihiin ba ilaahay yiri waa moogayin ba aayadkayga waxa aan tusaalayaal siinaya ba ilaahay leeyahay dadka in badan oo kamida ba gaafilin ka ah إذا رب سبحانه وتعالى كوحه هلاقي وحيد وحن وقتل قلي إن كنت صالة قاضتان ما أنت أحداث عالم الإسلامي كالدعضي وقت دعيين بين دروس كقبنا يا محاضرات تبغى قلنا وكرتان لكن مركز دركتن إن شاء الله يتو قال إن أنتوا قرة ضد كمان الله حلو وكمان الله لينيي وما أنت سيدي ميت يسوق كل بس سرير لقوا سيدا محكمة لقوا سي وضع ميانا هين وحلقوا وانا قاطو دي فرعون بيلا هيدي وان ريبيا قلفتي سوحانا نور ريبيا انا كوانا قاضتان بيلا هيدي سبحانه وتعالى مركا دركتو متشاليتو مساجد لها waxa lagu gali karaa kaad si loo ogaado inta salaadooda ay tukatay dulmigu halka ka gaarsiisan yahay wax isagaba ku saabsan ma hay ilaahay inta fooda dhulka u dhigtaan lagu tirinaya ma had dawlad iyo maamulkeed iyo xoogeed iyo waxeedaba hadaad iska daysa xataa ayaa tirada ilaahay uma isaga sujuudaya sujuudada lagu tirinaya way ka gaadhay ilaahay rabbina tusaysago dunida meel uu ka galala kolba diyaarad saaran oo wadan waliba leeyahay war ragat حتى كوي وحن لودي سيدي الشيطان كيدادين واك ها قالوا ننا لا داف شيطان كاي القران كو خو تلمامه بني ادم كانوا يدهد قالوا فلما كفر قال اني بريء منك markuu gaaloobaabuu yidhaahdaa beri baan ka ahay baa ilaahay yidhi shaydaan ولذلك اخوتي في العقيده waxaynu leenahay waxan kawaarith iyo balaayo dhacaysa ee duul alla ku halaagaya inta ugu badan le waa dulmay ku timi dulmul bashar ciqaabti ka dhalatay weeyaan waxaana yihiin baynu leenahay namaadij waa examples kana waxa la inoo siiyay inaynu nagu ku cibro qaadana ama xisaabta dhaalimiinta way dambaysaa xisaabta rasmiga ahi ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu tilmaamay aakhir marka la yimaado ma lidh-dhaalimiina min hamiimin wala shafiicin yutaa وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون ما لها با إلهي سبحانه وتعالى قوة الظالمين تاهي ما لها مد سكية يمد أشفاع قادتون ما لها با إلهي وانت قياما لصوت بيه وحال إلى هذا رب إلهي سبحانه وتعالى كوي ظلم قسميي ردمية وحا ظلم صوصة ويسين إلهي نوحينا وبلن قادوين ليه النبي عليه الصلاة والسلام حديث تلمامي إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته إلهي الظالم كواوكادية هدو سقبته ما بحث ضرى إلهي سبحانه وتعالى وهل لسوغا مدى لسيا عسى ولعل أن يتوب بل إنه طابتك إنه كسر نغضه لكن ربي وحي إليه سبحانه وتعالى هدان قبته ما بحثه لذلك النبي يقول آخرية وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد رب سبحانه وتعالى وحين ليه ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين إلهي سقى وحنو شقى وحليه وركوي هرميانا هلاقين بإلهي سبحانه وتعالى waxaa umamaan idinka soo sheekeeyay miyaanan halaagin kuwa kale miyaanan ka dabageyn baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala sidaasun baanan ku wadayaa baa ilaahay yidhi mujrimka dhaalimiinta kadalika nafcalu bilmujrimiin baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala
laakiin bini aadamka cibro qaadashadiisu yartay bini aadamka ayaa waantowgiisu yar yahay waxaa nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam axaadiista saxiixa ah bukhaari warinayo iyo kuwa kaleba waxauu nabigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaamu albukhaari wariyey ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة صدح أنيقا أهبر ربي لعدة للدودة سمالة القيامة رب الدعوة كوسو وكور ويسوي كل الدودة ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤته أجرته nin ilaahay magacii ku bixiyey cahdi dabeetana khiyaameeyey nin waxii qof xora intuu soo qabsaday iibsaday qof xora intaad qabato inaad tiraa lacag la siiyo mooyaane laba sii daynayo waan iibsanayaa qof intuu qof xora soo qabsaday iibsado lacagtiisa cunay baa rabbi leeyahay subxaana wa tacaala iyo qof intuu qof shaqaalaystay markuu shaqadii ku dhammaystay u diiday ujradiisii shaqadii markuu ka dhammaystay yidhi warood setag waxaan baad xumayso halkan wax kamad qabanee idhaaf waxba ku siin maayo waxba ma lihi maantao dhanna wuu ku shaqaysanayay ama bil dhan buu u shaqaynayay saddexdaas buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam rabbi wuxuu yidhi waa saddex dulmi oo ka fudud dulmiyada waaweyn ee weliba la sheegayo kuwa aniga maalinta qiyaame khasmigooda ah baa rabbi leeyahay subxaana wa tacaala waa dad ducafo ah oo dacfigooda laga faa'iidaystay waa nin intuu dad u ballan qaaday ammaan iyo cahdi siiyey haddana khiyaameeyo laayay dacfigooda ka faa'iidaystay waa nin dad masaakiina intuu iska soo qabsaday yidhi lacag lay siiyo mooyaane sii dayn maayo ama iibiyey waa ducafo waa nin miskiinoo shaqaalo ah oo ay xoolihii laga dafiray kuwa ka buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala anigaa ah maalinta qiyaame kala doodaya nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixaynka ku yaalla wuxuu leeyahay wallahi laa ya'khud axadun minkum shay-an bigayri xaqihi ilaahay baan ku dhaartay midkiin wax aanu xaq u lahayn ma qaato gardarro wax kuma qaato ilaa laqiya allaha yaxmiluhu yowma alqiyaama ilaa maalinta qiyaame wuxuu imanayaa isagoo xambaarsan oo ku raran iyadiyo dulmiya maanta xoog baad isbiddo waad ku qaaday qalinkaad tiri waxbaad ku xisaabsan karaysaa waad ku khiyaamaysay qaabkaad doonaysa u qaad waxaanad xaq u lahayn oo aad qaadatay maalinta qiyaame adoo ku raran baad iman buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam falaa acrifanna axadan minkum laqiya allaha yaxmilu baciiran lahu rugaa aw baqaratan laha khuwaar aw shaatan taycaru nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam aakhiro waxaa la keeni doonaa mid oo aan garan doonaa isagoo awr ku raran awraad ninkii lahaa ka qaaday adigoo dusha ku sida awr geela ka waran neef geela adigoo xambaarsan ama sac adigoo xambaarsan ama neef hidaa oo intuba ciyayso yani tuugga waxaa laga yaabaa markuu xadaya ama wax qaadanaya inay aamusan yihiin marka kan waxaa la leeyahay awrkoo doobiyaya ama hashoo qayliyaysa adoo dusha ku sida ayaad la imanaysaa sacoo banaaxinaya adigoo dusha ku sidaad imanaysaa waxaad imanaysaa rida ama laxda iyadoo aanayso qaylinaysa adoo dusha ku sidaad imanaysaa khalaa'iqda ilaah oo dhan oo ku daawanaysa lagula soo taagayaa wixii aad xaday iyo wixii aad man daraba bisawdin dulman iqtasa minhu yowma alqiyaama xadiidkii kale bukhaari hal dhengada qofka cid ku dhuftay dulmi ugu dhuftay dhengad yaroo dulmiya walow macallin qur'aanna ha noqdee aabba ha noqdo aabbaha iyo macallinka iyo kuwan wax tarbiyeeyaa la yidhi laakiin wax iska dila lama odhan hadday dulmi tahay aakhiro wuu imanayaa isagoo dhengadiisii sita waana laga jaraya idan nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam
dhangad baa ugu yara dhangad qofkaad ku dhufatay waad iman maalinta qiyaame adigoo xambaarsan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya axaadiistiisa waryaadhahan mufliska ma taqaanin buu yidhi caydha wax ma haysatada maalinta qiyaame cidda caydha ma taqaanin buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxay idhahdeen dee caydha annagu waxaan u naqaanaa man laa dirhama lahu walaa mataac ninkaan mood iyo noolkoona haysan dee mood iyo noolkay soomaalidu sheegi jirtay yacni wax kaasha iyo wax aseta toona ma leh waxba ma hayo kaasaanu caydha u naqaanaa bay idhahdeen ilaahay rasuulkiisiiyow nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay war caydh iyo wax ma haysato waxaa ah ninka maalinta qiyaamaha yimaada isagoo soon iyo salaad iyo zakaba soo sameeyey laakiin yimi isagoo kan caayay oo kan maagay oo kan xoolihiisa cunay oo kan dhiiggiisa daadiyey oo kan garaacay oo kan midba wax ku sameeyey oo dabeetana dadku dee deyn bay ku lahaayeenee loo qaybiyo wuxuu hanti haystay marka kan hantidu waa xasanaadka hanti kaloo la hayaa ma jirto dadkii deynta kugu lahaa inta isu soo tubaan ayaa loo qaybinayaa markaa xasanaadkii kaad caydhay kaad dishay kaad maagtay wixiiba iyagaa loo qaybinayaa nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu gaadhayaa xad wixiisiiba dhammaadaan dadkiina badhweli hadhay dulmigu wuu kala badan yihi bal ninka 1 milyan oo qof xoolahood xaday ka waran ninka nin qura wax ka xaday dee nin baaba wax ku leh Soomaalidu waxay moodaa xoolaha dawladda iyo meelaha kale inay iyagu waa nin rag la yiraahdo ninka habelintii uu wasiirka halaba guriga reerka u dhisay hadda labadan guri waxa laga yaabaa 10 milyan oo dad ay ka dhaxeeyaan aakhiro 10 milyan oo qof markay kuyuu ku soo gasho ka waran 10 milyan oo qof oo Soomaaliyeed marka la yiraahdo ninba jabuu leeyahay inta la kacday 10 milyan oo qof isa soo taagto ilaa waa waxoodii waa hantidoodii nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam dadku waxay moodaan xoolaha dadka badan ka dhaxeeya iyagu inaan aakhira la soo qabsanayne ka qofka caadiga laga qaado war 10 milyan oo agoon iyo miskiin iyo mid baktinayay iyo wax waliba ku jiraan kana dhacdo waxa laga yaabaa hal nin oo qaniyo wax iska haysta iyo wax inaad ka dhacday waa dulmi laakiin hal qof baa laga yaabaa inaad gashay waxaad ka qiyaastaa 10 milyan oo qof oo agoomale oo dad waalan leh oo masaakiin leh oo caydh leh oo baahi leh oo wax walba leh marka aakhira intay soo tubaan ilaahdaan kan baa wax yagi qaatay nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam xasanaadkaaga marka loo dhameeyo dulmigooda la soo gurayaa adiga dusha laga saaraya dunuubtoodii qofkii dulmi sameeyay waa kuwa kan waxay ku dhawaaqayaan waqaaluu yaa waylana hada yawmuddiin hada yawmul fasl alladhi kuntum bihi tukadhibun احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقف